marka laba mas'alo see ka khaldamin mas'alada ku saabsan qofkani inuu isagu taladii haysto madaxweyne muslimana uu yahay oo isaga ciidanka iyo dawladda dadka ay ka amar qaadanayaan oo amarka nahyiga isagu inuu leeyahay in wada khaldan soo maray wadada khaldan uu soo maray waa arrin la soo dhaafay waxa xarakaadkan iyo axsaabtan diiniga ahi tarbiyada marka hore ay dhalinyarta siiso ayaa waxay tahay tarbiya mucaaradnimo ah in hadii jeeraale dawladaha lagu kacsanaado oo laga hor yimaado. jazaaka allahu khayr sheekh. saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh waxaad hore u sheegtay in doorashada dimuqraadiyadda waa adiga sheekh barbaraawi ahaan bay su-aashan ku khusaysaa. sheekh waxaad hore u sheegtay in doorashada dimuqraadiyadda aanay diinta islaamka meelna ku lahayn, islaamka la isku xukumo. mar kalena waxaad sheegtay in culimadu aanay dowladnimada fahamsanayn oo ay tahay inay fahmayeen, oo maalin dhaweed ayaad hadal noocaasa jeedisay. sheekh say isu waafaqayaan dowladnimada la fahmayo doorashada dimuqraadiyadda aad tiri diinta islaamka meelna kuma lahayn? arrinta ku saabsan doorashada doorasho oo dhan marnaba maan diidin anigu. doorashada waxa weeyaan aan diidaa waa doorashada ummadda masiirkeedii iyo taladeedii iyo hogaaminteedii dad aan mudnayn arrinta noocaasa oo aan ehel u ahayn wax laga weydiinayo oo la qabanayo doorasho guud oo cid waliba ay ka qayb gelayso. laakiin doorasho hadday tahay doorasho ahlulxalli walcaqdi waa ay samaynayaan dadka ummadda diinteeda iyo dadnimadeeda iyo adduunyadeedaba u danaynaya waxna fura waxna xidha sida culimada axyaanta dadka hogaamiyeyaasha qabaa'ilka iyo ciidamadaba saa culimadu waxa weyaan ay ku macneeyaan taa iyada maynaan diidin. doorashada aynu diidayna waa doorashadan gaal iyo muslimba wax laga weydiinayo taladii dadka muslimiinta ah. sidaasoo kale dadka waxmagaratada iyo dadka waxgaratada intaba taladii ay ka qeyb gelayaan. lagana yaabo marar fara badan dadka aan ummadda u danaynahayn ama aan garanahaynba cidda ay danta ugu jirto inay noqdaan kuwa badan oo marar fara badan taladii ummaddu markaa ay ku dhacdo cid aan ehel u ahayn. markaa doorashada waa taas iyadu. arrinta ku saabsan dimuqraadiyaddana dimuqraadiyaddu waxa weeyaan kolley waa mabda xagga gaalada inagaga yimi. macnaha uu xambaarsan yahayna uu yahay inay cid waliba madax noqon karto, gaal iyo muslim mid liitiyo mid kale, rag iyo dumar, oo qofku inuu madax noqdo ay ka xigtown inay dadku u codeeyaan waxa weeyaan ay doortaan. saasoo kale xorriyad ayuu wataa in la gaaloobo in xor loo yahay oo dadku diinta ay ka baxaan. waxyaaba fara badan oo xumaana oo dhaqan xumiya fisqiya oo inaga diinteena iyo dhaqankeenaba khilaafsan iyadana in waxa weyaan xor loo yahay. inaan shareeco laysku xukumin marba waxa dadku ay u bataan inuu yahay waxa saxda ah ee laysku xukumayo, oo haddii xeer xaaraan xalaaleynaya tusaale ahaan ay u bataan dadka xeerarka dejiya inuu kaasi uu shaqaynayo oo aan shareeciyo diin loo eegahayn. kolley dadkeena dimuqraadiyadda sideedaa aadka u foosha xun uma wada qaataan. inagu dimuqraadiyadda had iyo jeeraale dadku ma wada fahamsana, waxaana inta badan uga jeedaanuun in xukumka si silmiya oo nabadgelyaa laysugu dhiibdhiibo. laakiin dimuqraadiyaddu waa mabdaa dhan isku rakiban caqiido iyo mabaadi, acmaal iyo dhaqamo iyo axkaam intaba waxa weeyaan wata. waana mabda isaga iyo islaamku dee aanay kulmahayn oo haddii sidiisa loo qaato ay noqonayso in diinta islaamka ay waajibka ahayd inay dadka xukumto oo diintooda iyo dee noloshoodaba iyadu ay hagto oo dantooduna sida ay ku jirtaa. iyo dimuqraadiyaddu meel isuguma iman karaan. dimuqraadiyadda macnaha ee leedahay guud marka la eego way isbarabixinayaan. haddii meesha shareeca timaadana dimuqraadiyad ma jirayso. haddii ay dimuqraadiyad timaadana dee shareecadii sidii waajibka ahayd in uga shaqayso meesha kama shaqaynayso. dadku waxyaabaha had iyo jeeraale aanay aqoon u lahayn bay faaleeyaan, waxaana dhacda inay wax isku khaldaan. inagu waxaynu diidaynaa waa qofka madaxda noqonaya waddo khaldan inuu u soo maro madaxtinimada. tusaale ahaan in uu xoog ku qabsado iyo hub oo qofkii madaxda muslimka ee ka horreeyey intuu la dagaalamo xoog inuu kaga qaado mid bannaan maaha. laakiin haddii ay dhacdo oo isagu meeshii uu qabsado ou noqdo ka ay taladu ka go-aysa ee laga amar qaadanayo, la odhan maayo maadaama waddo khaldan uu soo maray isagana meesha laga tuuro. taani macnaheedu wuxuu noqonayaa in dee fawdo un lagu jiro oo marba dee mid la tuuro kani kanuu meesha ka qaaday hala tuuro, ka kalena kii ka horreeyey buu ka qaaday isna hala tuuro. deetana ummaddu dowlad la-aan iyo fawdo iyo nidaam darro inay ku dhacdo.
waata keentay in nebigu calayhi salaatu wasalaam dad shareecadu aanay ogolayn inay madax noqdaan haddii ay meeshii qabsadaan oo ay xoog tusaale ahaan ku qabsadaan ama waddo khaldan oo kale ay u soo mareen in la adeeco oo inuu muslimiinta addoon madax u noqdo ama banaana qof addooni laakiin haddii ay dhacdo inuu xoog ku qabsado nebigu calayhi salatu wasalaam muxuu yidhi wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam usiikum bitaqwa allahi wasamci waataaca wa in taamara calaykum cabdun xabashi waxaan idiin dardaarmay idin kula talinaya horta inaad ilaahay ka baqataan oo diinta aad ku dhaqataan mar labaadka madaxdiina muslimiinta ah inaad maqashaan aad adeecdaan wixii aan shareecada ka hor imanayn wey haba noqdaba ka madaxda idiin ahi addoon xabashiga marka addoonkan xabashiga xaguu ka yimi soo tii shareecada aan ogolayn inuu addoon dadka madax uu noqdo waxa uu ku yimi waddo uu soo marayba isagaa noqday qofka madaxda ee talada haysta marka la odhan maayo halaala dagaalamo meesha halaga qaado waayo fawdaa la gelayay dhiig daata waxayuna saasoo kale lamida nebigu alayh salatu salam wuxuu yidhi alaimatu min quraysh madaxdu waa inay quraysh noqdaan dadka muslimiinta u talinaya oo arrinkaa talada quraysh baa iska leh markaa qof aan quraysh ahayn hadduu taladii qabsado la odhan maayo xoog ha lagaga qaado oo meesha ha laga tuuro ama yaan la maqlin oo aan la adeecin marka laba masaloye see kaa khaldamin masalada ku saabsan qofkani inuu isagu taladii haysto madaxweyne muslimana uu yahay oo isaga dee ciidanki iyo dowlad dadkiba ay ka amar qaadanayaan oo amarkay nahyiga isagu inuu leeyahy iyo in waddo khaldan soo maray waddada khaldan uu soo maray waa arrin lasoo dhaafay sida adilada aynu sheegnay tilmaamaysa waxba dib loo eegi maayo waxaa la eegayaa hadda ma yahay qof madaxa oo taladii isaga ay ka go-ayso oo muslima wixii wanaaga waa lagu adeecayaa wixii xumaanana waa looga nastaxaynaya dariiqadan dimuquraadiyadda iyo doorashooyinka noocanina taas ayuunbay la mid yihiin oo haddii waddo dimuquraadiyada oo khaldan xukumka uu ku qabsado laakiin isagii uu noqdo man lahu alamru wannahyi ka taladii gacanta ugu jirta ee xukumaya ee laga amar qaadanayo la odhan maayo waddo khaldan buu soo maray yaan la maqlin oo yaan la adeecin ha laga hor yimaado ha lagu kaco ha la tuuro marnaba la odhan maayo waxaa ku dabaqmaysa nusuusta iyo adilada tilmaamaysa qofka madaxda ah ee muslimka ah ee taladu gacanta ugu jirto wixii wanaaga in laga maqlo oo lagu adeeco wixii xunna looga nasteexeeyo si ilahi subxana watacala uu yihi ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wauli lamri minkum nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu yihi usiikum bitaqwa allahi wasamci waaaca xataa hadduu yahay qof xumaana samaynaya mar hadduu muslim iyo islaamnimadiisa ay baaqi tahay wixii wanaaga waa lagu adeecayaa sidaasaanay culimadu kutubta caqiidada ku qoraan sida usuul sunna limaami axmed raximah allahu tacaala iyo aimada kaleba marka laba masalo isdiidaya maaha in la yidhaahdo war xukumka waddo khaldan in loo maraa ma banaana iyo in la yidhaahdo kii waddo khaldan usoo maray laakiin taladu gacanta ay u gashay hadda isagaa madaxweynaayo wixii wanaaga ha laga maqlo oo ha lagu adeeco wixii kalena ha looga nasteexeeyo waayo dadku dowlad la-aan marnaba ma diintooda iyo adduunyadu toona ma hagaagayso waa ka yihi cali bin abi aalib radi allahu canhu dadku qof madaxa inay helaan waa laga maarmaan mid khayr laha noqdo mid shar laha noqdo masala garanay hadduu yahay qof khayr leh hadduu mid shar iyo xumaan ku sifaysan uu yahay maxaad u tiri waa laga maarmaan wuxu waxaan uhi waa laga maarmaan haddii madaxba la waayo wadada dee nabad lagu mari maayo dadku kala socon maayaan qofka daalimkaa cid dadka kale ka qabata la heli maayo marka qaacidada sharciga ahi waxay dhigaysaa in nusuusta waafaqsan dowladda xumi mar walba inay ka wanaagsan tahay dowlad la-aanta ciddaynu ka hadlaynana waa qofka madaxda muslimkaa anuguna caqiidahaan waxaan aaminsanay qur-aanka iyo sunnaha iyo ijmaaca culimada ahlu sunnuhuna uu tusiiyey qofka madaxda ahi mar hadduu muslim yahay oo aanu gaaloobin wixii wanaaga in lagu adeecaa inay waajib tahay wixii xumaanana iyadoo waddo saxa loo marayo in looga nasteexeeya inay waajib tahay taa ku saabsan wadaadada dowladnimo ma fahamsana ma odhan waxaan idhi in badan wadaadada ka mida dowladda umay sii dayn dowladnimada umay sii dayn laabta macnaa qalbigooda may gelin waxaa xarakaadkan iyo axsaabtan diiniga ahi tarbiyada marka hore ay dhalinyarta siiso ayaa waxay tahay tarbiyo mucaaradnimo ah in had iyo jeer aale dowladaha lagu kacsanaado oo laga hor yimaado nataa'ijta xunxun ee taa ka dhashay waxaa ka mid a qofkii isagoo wadankii ku nool wadanku wadankiisi uu yahay oo diintiisi iyo adduunyadiisiba ay u baahan tahay dowladdii haddana inay iskaga jirto uun dowlad diidnimo inay iskaga jirto iyo mucaaradnimo uun inuu dowladda u caarido inagu ma lihiin dowladda wax walba ha lagu waafaqo waynu ku celcelinay taas
oo wixii macruufa maa lam tu'mar bimacsiya buri nabigu alayh salatu wasalaam, macsiye cidna laga yeeli maayo. laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq, makhluuq lagu adeeci maayo wax khaaliqa lagu caasiyayo. laakiin dowladnimadu waa inay jirto, nidaamku waa inuu jiro, kala dambeyntu waa inay jirto. taa dadka diintooda iyo adduunyadoodu labaduba way u baahan yihiin. haddii la waayana mushkilada ka dhalanaysa waynu aragnay, soomaaloo dhami waa aragtay, in fara badanoo dadka muslimiinta ka midina maanta way arkeen. oo yeman markuu cali cabdalla saalex xukumayay maanta farqiga udhexeeya waa la arki karaa. libiya khadaafi oo sharkiisu badnaa, markuu culimada qaarna ay gaalba ku sheegi jireen, markuu xukumayay maanta marka lasoo eego xaalku sii way iska muuqataa. saasoo kale suuriya, wadamo fara badan oo dee dowlad ay ka jireen oo dowladiinta lagu kacoo la burburiyey, waxba aan laga faa'iidin oo diinina meeshii may soo kordhin iyo shareeco la isku xukumaya. intii adduunye baaqi ahayd iyo intii diin hore u jirtayna waa looga sii daray. wallahu aclam.